wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqoonyahanno qoraayaal iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta guddoonka sare ee akademiyadda goboleedka afka Soomaaliga aga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Xasan Cismaan Gacar iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan oo si wadajir ah ugu horeyn meesha uga hadlay ayaa bogaadiyay horumarinta afka hooyo ee Soomaaliga xilka lagu dhiibay Ilaahay ha ku fududeeyo Allah ku wacdastiro annagana waxaan leenahay kuwii maxaa la yiraahdaa garabka istaagay kula shaqeeyay wax walba oo maxaa la yiraahdaa didadaadii iyo maxaa la yiraahdaa horumarkaaga dhinac ka ah garab taagnaa noqonaa rajayn doona insha Allah adii ku xigeenkaagi waxaan rajaynaynaa in Ilaahay u fududeeyo dabcan Saciid Saalax waxa waaye dadkii xasbuldiga u ah ama hal abuuro weyn u ah luqadda afka Soomaaliga dhaqanka guud ahaan marka waan rajaynaynaa in ay ku jirto gacmo maxaa la yiraahdaa la hubo in ay ku jirto waan rajaynaa waan filaynaa insha Allah taala gudoomiyaha hore akademiyada Professor Cabdalla Mansuur iyo gudoomiyaha cusub ayaa iyagana dhankooda muujiyay sida ay diyaar ugu yihiin sidii loo horumarin lahaa afka hooyo ee Soomaaliga waxqabadka xagga horumarinta iyo daryeelka af Soomaaliga inaan maartay sanadahaas aan daandahinayo arrintan marka koowaad waxaa ii suurtowday ama noo suurtowday inaan tababaro aan u samayno dadka Soomaaliyeed ciddii rabta kastaan u samaynay laakiin mid tusaale ahaan u soo qaaday waxay tahay macallimiinta dugsiyada oo saddex ka dhiga af Soomaaliga ayaa waxaan siinay fursad in aan u furno tababar xagga maartay toosinta dib u adeegsiga Soomaaliga sida toolmaan loo adeegsanayo qoraalkiisi oo ku dhow 700 macallin ayaa maartay aan u furnay akademiyada tan dadku soo wareejinta yaan loo qaadan mid ay maanta iigu horeyso oo xilkeeda ma aha ee ii kow tahay waa akademiye aan wax ka soo unkay Cabdalle iyo aniguba aan u goob joognay iyo dad kale markii la bilaabayay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay munaasabadaasi ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa afka ummadda Soomaaliyeed iyagoona bogaadiyay dadaalka aqoonyahanada Saciid iyo Mansuur iyo gruubyo kale waxay ka shaqeeyeen difaaca dalka marka la yiraahdo waxay ka shaqeeyeen difaacii afka Soomaaliga anigu waa dadka aad u jecel af Soomaaliga anahayo waan dhageystaa waa waxa la yiraahdo raadraac ama marka qofku uu rabo inuu Soomaaliga ama taariikhdii anigu kulay dadka aan dhageystay kamid yihiin waan ku faraxsanahay maanta Mansuurna shaqo aan la inkiri karin oo cajiiba ayuu qabtay waxaan doonaynaa in afkii la laabo shalay waxaan u maleeyay inaan ka hadlay afku sidoo u dabar go'ayo sida ma ahayn way isloogeen afkan haddii aynan sida uu maanta joogo aynan u dhaamin waxaan qiyaasayaa waa dabar go'aya waa tayn isla soo qaadnay ugu dambeyntii waxaa xilka lagu wareejiyay gudoomiyaha akademiyadda goboleedka afka Soomaaliga Saciid Saalax xil wareejinta kadib waxaa munaasabada soo xiray wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Faarax Cabduqaadir oo ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay akademiyadda goboleedyada afka Soomaaliga aga iyo aas-aaskeeda ma doonayo inaan wax badan ka sii sheego ahmiyadda afka uu leeyahay gaar ahaan duni isciriirinayso oo isriixayso dunidana waayadan dambe markii lagu riixo saaxadoo dhan baa laga saaraya afaf kale ayaa dusha inaga saaran waxaa yimaaday carro edegeyn iyo cawlama waxa la yiraahdaa globalization dadkeeniba waxay noqdeen dad luqado kale iyo adduunyo kale ku dhashay marka luqadana waxa ilaashan kara dadkeeda ayaa ilaashan kara